darteed wuxuu leeyahay nin macallimiinta Soomaaliyeed ka mid ah gabay uu tiriyey lowla almucallimu lakaana allaasu mithla albahaa'im mucallim hadduu jari lahayn oo mucallim dadka wax bara dadka soo saaran hadduu jari lahayn lakaana annaasu dadka waxay ahaan lahaayeen mithla albahaa'imi xoolaha oo kale maxaa yeelay insaanka waxa uu ugu duwan yahay xayawaanaadda kale waa caqliga iyo aqoonta sidaas darteed ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul waxaad dhahdaa nabi maxamedow hal yastawii mi eg yihiin oo masmi yihiin aladiina yaclamuun duulka wax garanaya waaladiina laa yaclamuun duulka wax garanayn jawaabtu waxay tahay laa yastawiyaani ma eka oo ma sinna maxaa yeelay qofka wax yaqaana iyo qofkaan wax aqoonin waxay isku yihiin mathalulxayi waalmeyit qof nool iyo qof dhinte oo kale mathalu aladii yacrifu shay'an min alcilmi waaladii laa yacrifu shay'an min alcilmi ka mathali alxayi waalmeyit mid dhintay iyo mid nool ay isu yihiin maxaa yeelay qofka hadduu dhintaa acmaashiisa waxqabadkiisa meeshuu ku hadhay ilaa wixii laga soo reebo maahee laakiin qofka markuu nool yahay waxaa u furan ilaahi subxaanahu wa tacaala dimbi hadduu kale inuu tooba keeno waddo qaldan hadduu ku taagan inuu ka leexdo fursado badanaa u furan markuu nool yahay sidaas darteed qofka wax yaqaanay qofka wax aqoonin waxay isku yihiin mathalulxayi waalmeyit mid dhintay iyo mid nool oo kale maxaa laga rabaa marka macallinka qiimaha uu leeyahay iyo sharafta uu leeyahay inaad aqoonsatid ayaa noogala baahan yahay maxaa yeelay macallimka waa qofka keliya bulshada uu ku dhex nool yahay madax u ah tiir u ah lagu taagan yahay macallin haddii la waaya wax kala soconaya ma jiraan wanaaggaan maanta aan haysanna islaamnimadan aan haysanna toosnaantaan ilaahi subxaanahu wa tacaala uuna siiyey waxaana soo gaarsiiyey mucallim maxaa yeelay ummaddan macallinkeeda wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wassalaam oo khayrka bari jiray waddada toosan waddada xun oo uu kala sheegi jiray rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaa ka soo qaadeen dadkii saxaabadii oo xilligiisa joogeen ayaa ka soo qaadeen sidaas ayay nagu soo gaartay rasuulka calayhi salaatu wassalaam marka laga soo bilaabo dadka la joogay rumeeyey waddadiisa maray iimaanka ku dhintay waxaa loo yaqaanaa assaxaaba dadka ka dambeeyey oo saxaabada la joogay waxaa loo yaqaanaa taabiciin dadka taabiciinta la joogay ilaa yowmina haada laga soo gaara waxaa lagu magacaabaa taabic taabiciin waxay raaceen kuwii saxaabada raacay ayay sii raaceen